tartan ciyaareedkan oo laga daafuray garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose degmada Burco waxaana tartankaasi ka qayb galay 8 kooxood oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee ka dhisan magaalada Burco ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Mukhtaar Axmed Cali iyo xubno kamid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi ee gobolka Togdheer waxaana ka warameen tartankaasi maanta waxaan halkan ku furaynaa tartankii ciyaareedkii heerka labaad ee gobolka oo maanta anigu aan maalgeliyay anigoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer aan ugu tala galay xoojinta nabadda xoojinta midnimada xoojinta horumarka isboortiga iyo isdhexgalka bulshada iyo kobcinta xirfadda dhalinyarada ee maxay ahayd isboortiga insha Allah heerarka kale heerka koobaad iyo heerka saddexaadna insha Allah waan u qaban doonaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu mar walba iyo xukuumaddiisa kala dambeeyay waxay garab taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliland oo ogtihiin madaxweynuhu wuxuu u furay mashruuc la yiraahdo shaqo qaran oo loogu tala galay ama madaxweynuhu ugu tala galay inay kaga maarmaan dhalinyaradu qabyaaladii gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa maalgelinta iyo dadaalka arrinka maanta isdhexgalka bulshada aan hawlgalkiisa iyo ayaa suurtageliyay isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur xildhibaan aadan dir oo kamid ah golaha deegaanka Burco ayaa dhankooda u mahadnaqay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer maanta waxaynu furmaya tartankii naadiyada degmada Burco heerka labaad oo ka kooban 8 kooxood tartankaas oo uu soo maalgelintiisa leeyahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Mukhtaar Axmed Cali qabanqaabadiisa iyo isku dubaridkiisana ay iska kaashadeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka iyo xiriirka kubadda cagta ee gobolka Togdheer waxaan leeyahay gudoomiyaha baad ugu mahadsantahay in dhalinyaradaadii dhiiri gelinayso anagu xiriir ahaan cid kasta oo dhalinyarada garab taagan ama isu soo jiidaysa dhalinyarada gobolka waan soo dhaweynaynaa welcome baan leenahay tartanka waxa maalgeliyay oo runtii maadi iyo macnawi iyo xoog maalgelintiisa leh gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo runtii dadaal muujiyay mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer aan uga mahadnaqno wasaaradahan gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Mukhtaar Axmed Cali aad iyo aad buu u mahadsan yahay oo Cabdikariin Muraad halkan taagan uu hormood ka yahay intii uu halka joogay waxyaabo fara badan baa la qabtay ama garoonka ha noqoto ama dhalinyarada ha noqoto ama tartano loo qabtay ha noqotee waxyaabo aad iyo aad u fara badan baa la qabtay waxyaabahaasina waxyaabaha horumarka keenaya maanta ciyaarta halkan lagu iba furay waxaan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Mukhtaar oo tartankan isagu soo abaabulay ama furitaankiisa iyo juhdigiisa bale waa uga mahad celinaynaa gudoomiyaha xisbiga waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa siduwaha ciyaaraha gobolka Togdheer gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Yaasiin Muuse waxaana uu mahadnaqay xisbiga talada hayay kulmiye tartanka waxa heerka labaad ah oo uu soo qaban qaabiyay xisbiga kulmiye gaar ahaan xafiiska gobolka Togdheer aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa inay gacan ka geystaan ciyaaraha waana arrin loo baahan yahay run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa mas'uuliyiinta gobolka ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in aan ciyaarihii kala joogsi lahayn oo ay gobolka Togdheer uga socdaan si isdaba joog ah hadba nooc ay qabtaanba Khaliil Barraawran TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.